Ashish waa jilaa caan ku noqday doorka laadarnimada filimada Bollywood-ka ee Hindiga, laakiin 6 sano ee ugu dambeysay ayaa shirkadaasi uusan u shaqaynaynin. Dhowrkii sano ee la soo dhaafay waxaa la isweydiiyay halka uu Jaan iyo cirib dhigay. Ashish oo muddo dheer daawadayaasha filimada Bollywood-ka ay jeclaayeen, qaal dhawaan laga soo duubay ayuu ku sheegay in meel walba uu tago la weydiiyo hal su'aal, taasi oo ah halkee ayaad ku dambeysay. Ninkan oo Soomaalidu u yaqaanaan Inter oo ah magaca ugu baxay jiridda filimkiisii tan iyo sanadkii 2015 uu xubsiibtay jiliinka filimenta loo yaqaano Kollywood-ka. Isaga oo ka jawaabaya su'aalaha la weydiiyay ayaa waxa uu sheegay, "Waligay waxaan rabay inaan sameeyo filimo badan oo wanaagsan, aan ku dadaalayay, laakiin hal xirfad inaan yeesho waligay ma doonaynin. 6 sano ee la soo dhaafay waxaan si qaas ah uga qayb qaadanayay jiritaanka filimenta ku baxa luqadda Hindiga. Sidoo kale waxaan ka shaqaynayay howlaha samafalka iyo dhiirigelinta dadka u baahan in nolosha lagu hago," ayuu yidhi. Ashish oo xirfadda jiritaanka ku biiray sanadkii 1994 waxa uu ka soo muuqday in ka badan 200 oo filim, kuwaas oo badankoodu ka ahaa laadar awood badan. Filimkiisii ugu horreeyay wuxuu ahaa Door Kaal, oo sidoo kalena ay ku wehelinayaan jilayaal caan ah. Bishii Maaj ayaa jilaygani laga helay cudurka Covid-19, dhawaana waxa uu sheegay inuu ka caafimaaday baaritaan mar kale lagu sameeyay. Ashish waxa uu dhashay 19kii bishii Juun sanadkii 1962, waxaana ku dhashay magaalada Kannur ee dalka Hindiya. Hadda da'diisu waa 58 sano jir. Sanadkii 1965 waxaa abaalmarinta filimka qaranka lagu guddoonsiiyay inuu noqday laadarkii ugu wanaagsanaa kadib markuu soo bandhigay filimkiisii ugu horreeyay. Sanadkii 2006 ayaa sidoo kale la abaalmariyay laadarka ugu fiican filimada ku baxa luqadda Hindiga.